December 26 1996 maalin ka hor waxay ahayd ciidda Masiixiga oo ay ka buuxaan farxad, hadiyado iyo qosol caruureed. Laakiin waalidkii Cabinet Ramsey maalintii ka dambeysay ciiddu waxay warogtay naxdinka weyn wax kasta oo ay qiyaasi kareen. Markay ka tooseen hurdada, waxay ku tooseen arrin naxdin leh iyo kool ka dhigay inay weydiiyaan su'aasha ugu darneyd ee nolosha qoys kasta: maxaa ku dhacay gabadheena? Maanta waxaan dib u eegi doonaa mid ka mid ah kiisaska dilka ayaan weli la xalin ee ugu murugada badan uguna caansan taariikhda Mareykanka. Kiiska Cabinet Ramsey, gabadhii 6 jirka ahayd ee quruxda badneyd oo dilkeedu ilaa maantadan la isku weydiiyo, wuxuu ka hadhay hooska mugdiga iyo shaki iyo aragti aan dhammaad lahayn. Cabinet Patricia Ramsey magaceedu wuxuu noqday mid ka dhawaajiyay sir, murugo iyo ceeb. Laakiin ka hor inta aanay noqon astaankiisa aan la xalin, Cabinet Ramsey waxay ahayd gabar yar oo caadi ah oo ay ka buuxdo farxad iyo tamar. Waxay ahayd 6 jir oo leh indho buluug oo dhalaalaya iyo timo dahabi oo dhaadheer. Laakiin ma ahayn gabar caadi ah oo kaliya. Cabinet waxay ahayd cunugta bilicda, ama afka qalaad wax lagu yiraahdo pageant child, iyadoo ku guuleysatay abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin Little Miss Colorado iyo America's Royal Miss. Waalidkeed John iyo Basti Ramsey waxay ahaayeen dad ka mid ah bulshada sare ee Boulder, Colorado. John wuxuu ahaa ganacsade guuleystay oo leh shirkado diyaarado, halka Basti waa gabadha hooyadeeda iyadana ahayd gabadh hore ugu guuleysatay tartanka bilicda oo ay ku bixinaysay waqti iyo dadaal badan inay gabadheeda u tababarto tartamada. Gurigooda weynaa wuxuu ahaa mid astaan u ah nolol hagaagsan oo ay u arkaan dad badani. Laakiin muuqaalka nolosha cajiibka ah wuxuu daboolay sir madow oo dhawaan soo bixi doonto. Waxay ahayd aroortii hore ee December 26 1996 maalintii ka dambeysay ciidda Masiixiga. Basti Ramsey waxay u toostay sidii maalin kasta oo kale. Laakiin markay hoos u soo degtay jaranjarada, waxay aragtay warqad yar oo ku taal. Markii ay gacanta ku qabatay, waxay ogaatay inaanay ahayn warqad caadi ah. Waxay ahayd warqad madax furasho ah, 3 bog oo gacanta lagu qoray. Warqaddu waxay ku hanjabtay inay dili doonto Cabinet Ramsey haddii John Ramsey uusan bixin lacag cadadeedu gaarayso $118,000. waxaana Basti lagu amray inaanay booliska u sheegin. Laakiin Basti oo naxdin la gariiraysa ma awoodin inay iska indhitirto amarkii dambe ee warqadda. Waxay wacday 911. Police! What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. See? Waxay ku qeelisay gabadheeda way maqan tahay. Basti oo naxsan iyadoo la hadlaysa dispatcherka 911. Markii boolisku soo gaaray guriga Ramsey, waxay la kulmeen muuqaal qasan. Qoyska iyo saaxiibadooda ayaa la joogay. Booliska Boulder, Colorado waxay yimaadeen iyagoo aan aqoon u lahayn dilalka madax furashada ah. Halkii ay si adag u ilaalin lahaayeen goobta dambiga, waxay u ogolaadeen saaxiibada qoyska inay si xor ah ugu dhex socdaan guriga, iyagoo si aan ula kac ahayn u burburin kara cadeymaha. Saacado kadib, iyadoo Cabinet aan weli la helin, John Ramsey oo ay booliska ku dhiirigeliyeen inuu guriga ka raadiyo, ayaa si lama filaan ah u helay wax naxdin leh: meydka Cabinet.
waxaa laga helay qol yar oo ku yaal qaybta hoose ee guriga waxay ahayd mid lagu soo weeraray sidoo kale waxaa loo geystay jug daran oo madaxa ah waxaana lagu ceejiyey xadhig laga helay goobta waa huwaal ma ahayn afduub waxay ahayd dil naxariis dara ah oo lagu sameeyey gurigeeda inta ay hurdayeen baaritaan ku xigtay wuxuu noqday mid qasan oo mugdi badan cadeymaha waxaa ka mid ahaa warqad madax furasho oo lagu qoray qalin iyo warqad laga helay guriga Ramsey waxaa sidoo kale la helay DNA aan la aqoonsan oo ku saabsan dharka Chamberlain taasoo dhalisay su'aalo waaweyn kiiska Chamberlain Ramsey wuxuu si degdeg ah u noqday mid qarsoon laba aragtiyadood oo waaweyn ayaa si weyn u kala qaybiyay Mareykanka waxaana weli muranka taagan yahay kuwooda saxda ah aragtidii koowaad oo ay si xoogan u aaminsanayeen booliska Colorado bilowgii waxay ahayd mid ka mid ah xubnaha qoyska Ramsey uu mas'uul ka ahaa dilka shaqaala'aantii Pastor John iyo walaalkii Pork baaritaanka iyo xaqiiqda ah in warqadda madax furasho lagu qoray qalab laga helay guriga ayaa shakiga sii kordhiyay qaar waxay aaminsanaayeen in Pastor oo hore u ahayd boqorada bilicda ay ku dishay gabadheeda shil ama cara kadib markii ay xanaaqday qaar kale waxay ku eedeeyeen John ama xitaa walaalka weyn ee Pork si kastaba ha ahaatee aragtidii labaad waxay soo jeedisay in qof dibadda ka yimid oo uu soo galay guriga oo uu dilka geystay taageerayaasha aragtidan waxay tilmaameen daaqad furan oo guriga ah cadeymaha burburka ah ee albaabka hoose iyo gaar ahaan helitaanka DNA aan la aqoonsan oo ku saabsan dharka Chamberlain sanado kadib haddana shakiga ayaa weli ku hareeraysan warqadii madax furashada ayaa si gaar ah u dhalisay muran qaab qorista iyo xitaa xaddiga lacagta ee la dalbaday 118,000 oo la mid ah gunsanadeedka John waxay dadka qaar ka dhigtay in ay aaminaan in uu qoray warqadda qof ka mid ah familka hase yeeshee DNA-da aan la aqoonsan ee laga helay dharkeedii waxay u muuqatay inay tilmaamayso dambiile aan ahayn qoyska kiiska wuxuu lahaa laba sheeko waaweyn laakiin midkoodna ma lahayn xal cad maanta in ka badan 20 sano kadib dilka Chamberlain Ramsey wuxuu weli yahay kiis aan la xalin baaritaanka ayaa sii socda laakiin xalka wuxuu u muuqdaa mid fog Pastor Ramsey waxay geeriyootay 2006 iyadoo aan weligeed arkin xal John iyo Pork Ramsey waxay la nooliyeen culayska shaki dadweyne iyo murugo aan dhammaad lahayn halkan aynu ku joojinaynaa haddii ay wax ka soo kordhaan waan idinla soo sixitinayaa fadlan ha ilaawin inaad like noo saarto waxayna ila tahay inaad nagu cusub tahay ee subscribe ka taawo xataa isku day inaad hal qof u share galiso mahadsanid tan iyo muuqaal kale intaynu ku kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu